ولا ليال jeerahan dambe waxa soo badanaya oo wadankeena ku soo badanaya in aan maqlayno warar in la qabtay tiro badan oo mukhadiraadka iyo xashiishka iyo khamriga booliskii ayaa wararka ay siinaya oo lagu qabanayo xuduudaha iyo magaalooyinka dhexdooda ayaga oo marka ay wataan dadkii u siday inay ka ganacsadaan ama goobo lagu keydiyay laga qabanayo taasi waxay tusinaysaa in daroogadu iyo maandooriyuhu wadankeena ku soo badanayo isla markaana ay jiraan dad arinta ka dambeeya oo maleegaya una jeeda inay bulshadan islaamka ah ay diinteedii ka fasahaadiyaan oo dhaqan dooriyaan maxaa yeelay sidaan xusi doono maandooriyuhu dhib badan buu ummadda u keenaya dhibaatooyin fara badan ayuu ummadda u soo jiidayaa oo aad u badan oo la soo koobi karin waxay kaloo tusinaysaa inay khamrigaas iyo daroogadaas ay suuq bulshada dhexdeeda ku leedahay waayo tirada inta leeg iyo xaddiga inta leeg lama keeneen haddaysan suuqa dalab ku lahayn taasina runtii waa arrin khatarteeda leh oo u baahan in loo feejignaado la iskana kaashado walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu bini aadanka uu abuuray wuxuu abuuray inuu koonkan u camiro wuxuuna ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqay nicmadan aad u weyn ee ahaa caqliga oo kaga soocay xayawaanaadka kale nicmadana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku waajibiyey bini aadanka inuu ilaashado waayo waa nicmada uu ku garaadsanayo ee wax ku kala garanayo wanaagii iyo xumihii iyo samihii ku kala soocayo waayo caqliga hadduu bini aadanku waayo xayawaanaadka iyo bahaa'imta wuxuu kaga duwan yahay ma jirto sidaa darteed culimmadu waxay dhaheen sharaa'icda ilaahay uu soo dejiyo idil shan arrimood in la ilaaliyo ayaa waajiba waa diinka iyo nafta iyo caqliga iyo taranka ama nasabka iyo maalka shantaas diimaho idil baa ka siman diinteenuna intaas ku salaysan tahay shanta ilaalintooda ayay ku salaysan tahay sadarteed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inaga xaaraamtimeeyey khamriga iyo maandooriyaho idil ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ورهدي أتيهين مؤمنينتي اسكغفوا هذا خمرقا إيو قماركا اسكغفوا هذا إلهي سبحانه وتعالى وايو لبضن بيدين سو تشيديان وان كهل دونا إن شاء الله حمانتا يدبكا وسو تشيديو نبينا صلى الله عليه وسلم وحولي maandooriye walba waa khamri kullu muskirin khamru maandooriye kastana waa xaaraan qofkii khamriga adduunka ku caba ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam oo ku dhinta asagoon ka toobad keenin khamriga aakharo ee jannada laga helayo macabayu nabigu sallallahu alayhi wasallam wala layal nabigu wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam inay ka mid tahay calaamaadka aakhiru zamaanka iyo saacadii soo dhawaatay in khamrigu uu faafo oo dadkii uu ku bato cabitaankiisa sidoo kale faaxishadii ay faafto jahligiina uu bato wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam calaamadaha saacada waxa ka mid ah in cilmigii la koriyeelo oo la qaado jahligiina uu faafo khamrigiina la cabo زينادينا أي فافت وعلامات الساعة القيامة أي دعي سؤالي تاسي أي دليل تايم النبي صلى الله عليه وسلم وحكى حديث كان النبي النبي عليه الصلاة والسلام إن أمدي سقيب كمد أي حلاشن دونتو خمرجا أيوة كم مجعابي مركز مجعان مجعادي أحين وما توي بتشرتايو ضد خمرجا كم مجعابي مشروبات روحية ومشروبات روح للعب أما حقا الله يرنا شعبه مجعيا يوبحيا qaarkood waxay ku bixiyeen biir abadaha magacyo kala duwan bay u bixiyeen markaas ayaga oo ku xiladaysanaya oo magacii khamriga ka carray oo moodaya magacay ka bedeleen in xukunkii bedelayso waxayna culimadu isku waafaqsan yihiin magaca oo la dooriyo inuu san xukunka saameyn alxaq
الأسماء لا تغير الأحكام ما يعيد أحكام فما بدشوا خمر أو الخمر واحد دون تكون مقعو خمر ولا ليال سلف الصالحي أصحابتي التابعين تي علماء ذي بقى waxay ku magacaabeen ummul khaba'ith oo macnaheedu yahay hooyadii xumaan oo dhan bay hooyo u tahay ayada soo jiida khamrigu shar kastana miftaax bay u tahay waxaana taa tusinaysa qisadan cajiibka ah ee laga soo wariyay sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu amirul mu'minin maalin ayuu khudbay Uthman ibn Affan dadka uu khudbay markaas wuxuu yiri wardada iska ilaaliya khamrigan وحويان الخبائث ويان اسكي إلاليور وحول نين دادك إذن كوريك كمد أها ونين عبادة بدن أها إسلام مركان أقوى العبادة دو مركان اسكي قفوغا أيا وحاد شعلاتي ناق أما هوين يحون أيا شعلات مركا وحي أصدرتي إنان أدون تيلا وجارية دي أصدرت وحيتي نيكاس يقول وحان ربا إنان مرخاتي aan gashado oo arrin uu marxaati iga noqday ninkii bay u timid jaariyadii ninka in iska cibaado badan buu ahaa oo waxa aan ogeyn daacad buu iska ahaa warkeedii buu rumaysto wuu soo raacay intii yarayd gurigii markii uu soo galay albaabka uu soo galo hoose ka xiraysa markii uu soo gaaray gurigii hoose ayuu arkay islaan dhex fadhida gurigii oo islaantii xumeeyada sharki waday waxa la joogay islaanta markaa inan baa ag taagnaa oo adoonkeeda ahaa iyo weel uu khamri ku jiro marka waxay tiri anigu kuma yeedhin bay tiri in aad marxaatiga noqoto arrin laakiin waxaan kugu yeeray inaad xumaan ila samayso waxay tiri ama xumaan taasaad samaynaysaa ama inan kala dilaysaa ama khamrigan aad cabaysaa saddexdaa mid dooro haddii kale waan ku fadeexaynaya waan kugu dhawaaqaya waxaan leeyahay ninkan xumaan bay ugu sameeyay saddexda mid dooreed wuxuu si khamriga ugu fudud saddexdaas bal khamriga oo haday mar arrin ku qabsatay bal khamriga aan koob ka cab wuxuu yiri khamrigaas koob iga khamrigi buu cabay markuu khamriga cabay oo maskaxdiisii ay bedelantay ayuu labadii kale xumaanoodba ku dhacay ayadiina xumaantii ku sameeyay inankiina wuu dilay والعياذ بالله مركز سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه مركو قصدا سو اروري ايا وحوري اسكغا فغاده خمرga ilaahay baan ku dhaartay qof muslim ah qalbigi kuma kulmaan khamriga jaceelkiisa iimaanku labada way isdiidayaan buu qof inuu muumin ahaado iimaan leh iyo inuu khamri cabo suuragal ma wuri qalbiga kuma kulmayso mid baa midka kale ka saaray wala la yaal khamriga iyo mukhadaraadka iyo daroogada oo la cuno ama la cabo asbaabaha keen way farabadan yihiin waxaan ka soo qaadanaa dhowr kamid ah waxa kamid ah ضعف الايمان iimaanka qofkani inuu iimaan daciif leeyahay oo iimaankiisu uu liito oo aslan ba alla ka cabsi uusan meesha ku jirin ilaahayna uusan muraaqabaynin laga yaabo dadka inuu muraaqabayna ka cabsanayo laakiin allahi abuurtay uusan muraaqabaynin oo una ka cabsanaynin oo qalbigiisa iimaanku uu ku liito akhlaaq iyo qiyamta islaamkan oo salahayn qofkani waa koow waxa kamida qofkan inuu san wacyi u lahayn ama uusan garanaynin dhibaatada iyo xumaha iyo dhibka ay u keenayso daroogadaas ama khamrigaas waxa kamida asbaabaha inuu qofkani dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ah iskaga fogaaday oo dad xun ama qaar dadka xun u dhex galay dadkaas uu saaxiib leeyahay markaan ay u horseedaan inuu ku dhaco wal ciyaadu billah khamriga cabitaankiisa iyo daroogadii kalaba waxa kamida qofkani inuu reer galbeedka uu jecel yahay iyo gaalada oo marka uu ku dayanayo gaaladaas khamriga had iyo jeer si calan oo muuqata u cabaya oo markaas taqliid a'ma oo maarta sameeyo marka asbaabta hadaan ogaano dawadii iyo xalkeedii uu noo dhawaanay maxay la shay kasta waxa lagu xalliyaa lidkiisa cudur kasta lidkiisa lagu daweeyaa intaynan dawada ka hadlin iyo asbaabaha lagu daweeyo arintan iyo mushkiladan waxaan wax yar ka taabanaynaa dhibaatooyinka ay khamrigu umada u soo jiiday bulshada la shakka inuu qofkan dhibaato u soo jiiday khamrigu iyo daroogadaba bulshadana uu dhibaato u soo jiidayo qoyskana uu dhibaato u soo jiidayo sida darteed culimada
إسلامك مد كمية أو ليدا ابن حجر الهيثمي علماء هو كمية كتاب حسكلي ليدا الزواجر عن اقتراف الكبائر وحقق كبائر تدبيده ووين كبائر تايو كقرأ مركي وشيء مركا خمرك أو كهالله كدبنا أو كهالله حشيش كي مخدراتك أيها وحور عنتان كذا وحكوت شروري بقول يلا باتن دباتو الدين الدنيوية بقول يلا باتن دباتو يمضرو أيه لا هذا يقول خمرة إياه حشيش كاسي أو قف الدين كيسنا وحيلانيس الدنيا دي سنة وحيلانيس كدينا قار كم إذا أيوه شيء إنه مركلكم حكوا حسنا قار كم إذا أنتاس دباتوين كدين جاه قفك أوكينيس وحكم إذا خمرة إياه حشيش دبا وحيد لسا عداوة يا بغضاء نعيب يا عداوة بين لسا مسلمين تدحضوضة لبي كانت هذا قال يفتن بهرسة دا إسلام مركا قفكي ضاعد إلهي أي كور استكتا سورة قال ما قف دروغ عنيا أما خمر عبي إنه صلاة تكذو أو حل جدي وتكذو سورة قال ما أها وقت يا أبو الدروغ سي مان كيسي عقلي سي ما بتشوف سأدرت الله سبحانه وتعالى وحوري مركو خمر إنه قد جاي آيات مركو تنسوا حسيني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شيطانك وحدون يا أبو إنه نحدينا كأبورو خمر جاي دروغا مركز استعماشان عداوة إصنعيب إسلام مركانا آد كالثوغاتان أو إصدقاش في النحدينا كأبورو صلاة ذكر إلهي حسكي سنة إذا كفوا أيو دون يا مكرب تومي سام بالله سبحانه وتعالى وحكم ذا دباتوينك أي كينيسو دينية قفك إن أن دعادي سلا أجيب وإلهي سبحانه وتعالى هدو بريو إلهي دعادي سنا أقبلين تاسنا وحينوشك النبي صلى الله عليه وسلم نبي حولي إلهي وحويان طيب ومد وناكسن وحوناكسن أيوم فري المسلمين تا وحن وناكسرين إلهي سبحانه وتعالى ما أقبله كذب النبي صلى الله عليه وسلم وحوش جنين سفريا أو سفر كدارينيا ونقولها قفك مسافر كالدعاء دي سوال لا أجيبه محايل وقف دبن أو دب دريمي مركا سفر كي مركو كل يراو أيا مدحيس أيا بصاص ميا بورد يهيف بلبا كم وقاري سقعمي سكر وقال إلهي مبريا وحوله يا رب يا رب لكن النبي حولي صلى الله عليه وسلم عنتدي سوى حاران عبيتان كي سوى حاران وحو ساكا كو قريع أما كو قذي أما كو عشي حاران دركي سنو حاران سيد دعادي سلو أجيب إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما أجيب مركا قفك خمر عبي وحويان قود كيسا حاران قود حنبو عنو خبيثة إلا أو كتبت كان الدعادي سلامات بلايو وحكم ذا قف كاسي إنه ضدك أهر سيدي حمان أو ضي شحن ويهب الشرع هدو أبي هذا علمه سي أيا كود ضيريا هديو يهي قف هرتشوجا أما معلن أما قف بالشرع كود ضيترا ضدك وكل احتري أصحاب تيسي ضدك كأجر وربع كود ضيريا مركب وحويا ضدك سو إذا الحمان تهر سيد الدم بيجودي وحنباريا معلمة القيام وحكمنا دباتوينك أي لا هي إن أي قفك حشوتك كدليس حياجي أي كتجي حياجي إيمانك حشوتك إيمانك لولا حيري هدي من لواي متك لولا واي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي آذن حشونين وح الله وحد دون تسمع معناها قفك سي وحريا هدوس مر سريجانين وحريا يوح أوك حشوني متشرتو وحكمنا دباتوينك إلى إن حريست إلهي قفكاس لقف قيله إسلام كان على الدين إلهي قد عيس والعياذ بالله والنبي حنوشة صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أو إمام الترمذي وريي إن إلهي وخمرجا ونبي صلى الله عليه وسلم ولعن ذي خمرجا طبعا قف بكل لعن ذي قفك ميريا أما سمينيا عنبك يوحي لمدك كسمينيا iyo qofkii loo miiray loo sameeyay kii cabay kii xambaarey kii loo xambaarey macnaha loo soo qaaday kii waraabinay qofka siinay kii la siinay kii iibinay kii iibsanay
iyo qofkii lacagteeda cunayay intaaba nabigu u lacnaday sallallahu alayhi wasallam bimacna ay qof oo khamriga calaaqa la leh ama isoo gaadho ama ka shaqeeya ama howlwadeenka ama ay wax nabigu u lacnaday sallallahu alayhi wasallam taana waxay tusinaysaa inay khatar ay tahay lacnaduna waxay ka mid tahay wixii nabigu u lacnaday waxa weeyaan waa kabiira min kabaa'ir dhunub qofkaas wuxuu ku dhacay dambiyada waaweyn ee cadaabka waajibi hadduu san ka toobad keenin dhibaatooyinka ay leedahay waxa ka mid ah in aakharo عقوبة وين إلهي قفكاس ودياري يا عذاب آد وين بل حديث كان دقيست ولا عليه والحديث عجيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم إلهي وحب الله كقاضي قفكي خمرجع يمسكر كدرجات عباء إنه يوم القيامة ورابي طينة الخبال أصحاب تيودين وحدا يا رسول الله طينة الخبال محل إلى هذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام ولدت كأهل النار أما دعانك أهل النار ككمل ما يشرك هذا مرك العذاب أي إله سبحانه وتعالى نار جهنم كورابنا يا أصلا معنا قف كاس النار تيجريا إسلام كان وحعبيا دعانك أهل النار والعياذ بالله وهدوس توبة كريم وحديث صحيح مسلم وري دباتوين كلا أي كتاسوا دباتوين كدينية دباتوين كحاجة عافيماتك دباتوين بدن بيرضح waxaa ka mid ah cudurro badan bay soo jiida sida TB-da calool fadhiga qofkii inuu gabow degdeg ku yimaado in dhiigiisi wareegiisi uu hor istaagto in qofka laga yaabo marka qaarkood wadnaha inuu istaago si kadiisa u dhinto wayna dhacdaa aad bay u dhacdaa dad qof asagoo daroogaysan in wareegii dhiiga maadaama ay saameynayso in wadnihii dhiigu uu soo gaari waayo oo degdeg wadnuhu istaago qofkii u dhinto asagoo daroogaysan khaatima xun oo ku dhinto wal ciyaadu billah عقلك أي ضعيف الساق قف كمان كيس قف كخمر بتصدا عقلي يسوي ضعيف يا مرة قارقود وحبة جاري سئين واش قف كاس وحيد باتو كين الساء شركة كهرتجي سي أودي سو عذرات كهرتجي سادرت القف كعذر بدر أي كل عكرة سيف وضوء عكرة وحكوا السامين الساء ونجيلا مسكحة وحي نبو كين الساء والنها إيوه بيركا يكليها waxa laga yaabaa qofka inay kaliyo ay si degdeg u fariistaan sidoo kale sanbabada ay dib u keenaysaa saadarteed cudurro fara badan ay dhaqaatiirtu ku sheegeen daroogada iyo khamriga labadaba inay qofka u keenayso saadarteed dhakhtar ayaa loogu yeeray in uu muxaadaro u jeediyo dad mudminiin ah oo khamriga cabba inuu ka maarad kala taliyo dhakhtarkii wuxuu keenay laba dhalo oo tusaale uu ku siirayo dhalo waxa ku jira khamri dhalana waxa ku jira biyo wuxuu soo qaaday dixrigii ayuu ku riday dhaladii biyaha ahayd wuxuu yiri bal eega waxay arkeen dixrigii oo biyihii sabayray oo iska dhex dabaalanaya oo biyihii waxba ay yeelin haddana dixrigii uu soo qaaday wuxuu dhex geliyay dhaladii uu ku jiray khamriga wax yar kadib dixrigii uu dhalaalay uu ku milmay waxaa dilay acidkii ku jiray khamriga ayaa baabiyo gibgiisiba eber ka dhigay markaas wuxuu yiri message-kii ama risaaladii aan idin waday ma fahanteen buu waan fahanay badan hadaba kaas uu dibka u keenayo bini aadanka calooshiisa markuu khamrigan uu geliyo dibka u soo jiidayso iyo jirkiisa saameynta ku yeelanaysa waa artaan buu idinku waa indhihiin ku aragtaa sidoo kale qofka nafsiyan bay u dilaysaa waxay u horseedaysaa warwar والبهار تيرانيا عن حلهين waxa laga yaabaa qofka xataa fahankiisa inay hoos u dhinto xusuustiisa way yaraato hilmaan badan ay qofkii u keento iyo tarkiiskiisii uu yaraado marka dhibaatooyin badan bay qofka u keenaysaa caafimaad ahaan bulshada dhib bay u keenaysaayo waxa badanaya khilaafka qoyska ayaa badanaya ninka hadduu xaas leeyahay waxa laga yaabaa xaaskiisa inay isku dhacaan oo marar badan uu bato dalaaqii iyo furiinkii uu bato sidoo kale amniga ay khalkhal gelinaysa khamriga qofka cabaya amniga ayuu khatar ku yahayo qofka waa qof maankiisa uu soo joogo waa qof waalan oo kale bulshada hadana ku dhex jira waxa laga yaabaa dad inuu iska dilo laayo si fudud intuu haduu haysto wax hub ah wax ku dili karo si fudud saadarta waxaan arkaynaa reer galbeedka inuu ku badan yahay shilalka dilka waliba dilka jamaaciga dad badan hal mar la leynayo maxaa keenaya waxa keenaya waa daroogadaas iyo maandooriyahaas ayaa ku badan saadarteed gaaladu arrinta ay ku baraarugeeno way mamnuuceen daroogada
khamriga waa mamnuuc kari waayeen laakiin daroogada waa mamnuuc qofkii lagu qabtaana xashiishada waa la xidhaya waa la ganaaxaya oo ayagii oo haddana diin uusan u diideynin ay arkeen dhibaatadeedii arkeen sidaa darteed baa mamnuuceen sidaa darteed waxaa badanaya bulshada hadduu ku bato khamriga iyo daroogada ku bato waxaa badanaya jaraa'imta iyo faldembiyeedka ayaa badanaya waxaa badanaya kufsigii waxaa badanaya dhacii iyo boobkii iyo tuugnimadii iyo anwaacda jaraa'imta oo dhan baa badanaysa amnigiiba faraha ka baxaya sidaa darteed bulshada hadday rabto inay amnigeeda ilaashato waa inay ka hortagtaa khamriga iyo daroogada dhammaan anwaacdeeda kala duwan walaalayaal intaasoo dhan markaan ogaanay khamriga iyo daroogada xumaanteeda aan ogaanay see loo daweyn karaa maxaa lagu xallin karaa sida ugu wanaagsan ee lagu xallin karo waa inaan diinteena horta ku dhaqanno waxani waa wax xaaraana diinteena naga xaaraamaysa oo dembiye kabaa'ira cadhada ilaahay soo jiidaysa in aan ka fogaano dad muslimiin aan nahay oo gaalo ma nihiin waxay doonaan sameynaya xuduud baa leenahay sharci baa leenahay sharciga inaan ku dhaqanno waxaa kaloo loo baahan yahay dadka dhalinta ah ee da'da yar ee ubadka yar ee caqligooda uusan ku fillayn in la ilaaliyo oo si joogto ah loo wacyigeliyo gaar ahaan aabbayaashu ay ka warhayaan awlaadooda iyo carruurtooda yaryarka ah oo ayna suuqa ku sii daynin ciday doonaan inay la saaxiibayaan ciday doonaan inay la soconayaan ciday doonaan la ciyaarayaan waa inuu aabbuhu kontaroolaa awlaadiisu waqtiga ay guriga ka maqan yihiin meesha ay ku maqan yihiin waa inuu ogaadaa cidda ay la soconayaan waa inuu ogaadaa haddii kale waxaa laga yaabaa ilmihiisii maray tala fara ka baxday oo dad xun uu ku xidhay oo daroogadii bartay inuu ku baraarugo markaasna uusan waxba ka qaban karin marka aabbaha waxaa loo baahan yahay had iyo jeer inuu la socdo awlaadiisa meeshay ku maqan yihiin cidda ay la saaxiibayaan inuu hadduu ku ogaado cid xun ay la socdaan inuu ka joojiyo oo dad fiican uu ku xidho uu kontaroolo ilmihiisa la socdo xilliyada habeenkii ee dambe waa inuu ogaadaa meeshay ku maqan yihiin waayah waxaa kale oo lagu xallin karaa in dawladda iyo bulshadu iskaashadaan booliska iyo bulshadu waa inay iskaashadaan oo laga hortago cid kasta oo isku dayaysa inay xayisiiso ama iibiso ama ay dadka ku faafiso daroogadan iyo khamriga waxaa kaloo loo baahan yahay culimmadu inay door weyn ka ciyaaraan ama door weyn ay ka qabtaan wacyigelinta bulshada oo ay muxaadaraad badan iyo khudab badan iyo wacdi badan laga qabtaa arrin dhibaatada ay u leedahay bulshada khamriga si dadku ugu baraarugaan dhibaatada ay leedahay dad badan baan garanaynin dhibka ay leedahay oo markaas wuxuu qofku hadduu jaahil ka yahay si fudud baa u dhacaya waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha lagu cilaajin karo tarbiyada ilmaha iyo qoyska in la hagaajiyo oo qiyamta islaamka lagu soo tarbiyo waalidkuna mas'uul buu ka yahay arrintaas intaasaan ku soo kooban ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii diintiisa ku dhaqma xumaha iyo xumaantana ka fogaada